weerareen deegaano ay dadkaasi ku noolaayeen. dadkan ay dhibaatadu gaartay ayaa la sheegay in ay yihiin dad rayid ah. Haddaba Maxamed Maxamuud Cadde ayaa telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha jaaliyadda Oromada ee dalka Canada, waxaana uu weydiiyey iyadoo magaciisa la yiraahdo Axmed Mudiir sida ay wax u dhaceen. anigoo ah gudoomiyaha Oromada ee magaalada Saskatoon ayaa waxaan ku cadeynayaa in maalintii shalay oo Arbacada ahayd xilligii saacadu ay tahay 12 saac ee subaxnimo weerar ay soo qaadeen ciidanka ama booliska la yiraahdo Liyo Haile ee Soomaalida ee deegaanka Soomaalida Ethiopia halkaas ayay waxay ku laayeen dad rayida shacab ah waxba galabsanin, haween iyo caruur iyo dad gaaraya ilaa 33 qof ay dileen ayaa la sheegaya magarad. maxay tahay sababta weerarka loo soo qaaday? marka aan weydiinay waxay sheegayaan dadka sababta ma garanayno, laakiin baryahan dambe kadib markii dawladda federaalka faragelin ay ku sameysay deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa baraha bulshada dad dagaal abaabuliyaalka oogeen sabab u noqdeen xiisad colaadeed abuureen. weligood bay nimankan Liyo booliska loo yaqaano dagaalka ay wadeen xuduud ay weerari jireen, sababta ay iminka ku soo aadiyeen runtii lama garanayo. weligoodna waxay ka soo horjeedeen isbedelka cusub ee hadda Ethiopia ka socdo, dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ayay ka soo horjeedaan. taas baa loo saabsanaya magarad. maxaa lagu cadeyn karaa in weerarkan dadka soo qaaday ay yihiin police sida adigu u dhigayso? kadib markaan anagu aan telefoon aan u diray oo aan wareysanay dadkii goobjooga ahaa ee dhiiga gacanta ku hayay meedadka wadooyinka ka aruurinayay, waxay arkayaan iyagoo dharkoodii ee Liyo booliska qabaan sidii hore loo yaqaanay af Soomaaliga iyagoo ku hadlaya oo cararaya oo xabada ridaya ayay inoo sheegeen ay xaqiijiyeen. waa la yaqaanaa dhowr jeer bay weerarka soo qaadeen. maalin waxay ahayd oo afka Oromada lagu yiraahdo oo gabay oo dad fara badan isku imaanayaan suuqa ay ku jiraan ayay weerarkaas soo qaadeen oo cid kasta way garanayaan. meelo badan dhowr magaalo ayay weerar ku qaadeen, 5 magaalo ayaa la sheegaya weerarka ku qaadeen. waxaanu la xiriiray dadka odayaasha iyo culamaadiinka iyo ganacsatada dadka halka degan ayaanu la xiriiray. waxay noo soo direen oo intaheena aan ku aragnay dad gaaraya ilaa 33 oo baraha bulshada ay noo dhigeen meedadkooda isdul saaran oo frinjiteer lagu aruurinayay oo hal saf oo la galiyay indhahayga ayaan ku arkay oo video ayaan hadda aan haynaa. dhibaatada qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ka dhex taagan waxay u muuqataa labada dhinacba in ay cabashooyin muujinayaan, qolo walba qolada kale farta ku taagayso in ay dhib ka wado. adiga maxaad uga jawaabaysaa? arrintaasi runtii waxay tahay way jirtaa, waa sida aad u dhigtay. waxaan u aragnaa arrintaasi colaad ama cadowtinimo kama dhaxayso labada shacab waa dad walaalo ah weligood ay wada degi jiray. cadow ama shirqool cadow uu dhex dhigay ayaa halkaasi suntiiba halkaa ku jirtaa. suntii dadka sunta aaminsan dad Soomaali waxay aaminsan yihiin inay Oromada dhulka ay ka qaadanayso. Oromadana waxay aaminsan tahay inay Soomaalidu isbedelkan hadda Oromada ay heshay ka hor taagan tahay oo gacanta siinayaan nidaamkii hore oo meesha ka tagay TPLF. sidaas ay u arkaan. arrintaas ayaa marka cadowtinimada la dhex dhigay labadan qowmiyadood oo walaalaha ayaa dad baa ka faa'iideysanaya oo isku dilaya. sidee loo daaweyn karaa? maxaad hadda adiga maadaama aad mas'uuliyiinta Oromada ku jirto haddana aad ka soo noqotay Ethiopia ka soo noqotay, sidee dhibaatadan aad sunta ku sheegayso loo daaweyn karaa? dhibaatadan waxaa lagu daaweyn karaa wayacadahay waa in ay go'aan kama dambayska ay qaataan labada dhinac Oromada iyo Soomaalida. qalbi fiyoob la isku yimaado, odayaasha, culamaadiinka, dhalinyarada, ururka haweenka deegaanka Oromada iyo deegaanka Soomaalida iyo federaalka ba dhamaantood inay iska hor fariistaan. wixii khaladaad ka dhacay la isaaxo, wixii wax dambena si ayna dhicin oo go'aan adag iyo hal meel go'aan adag inay ka wada qaataan unba arrintaasi lagu xallin karaa. inay Oromada u cadeyso Soomaalida inaysan duulaan ku ahayn oo dhulkeedan aan rabin, Soomaaliduna u cadeeyaan inay dhulka Oromada aan rabin. cadowgana labadan qowmiyadood isku dilayo wixii jira in banaanka la dhigo oo runta la isku sheego oo la issaamaxo. taas ayaa halka lagu gaari karo sida ila tahay aniga.